السلام عليكم أصحابتك سلوى هذا هل دقيقة ما أنتم حين برنامجكين وهاد لنا أرمينيا waa dal xiran oo aan bad lahayn kaas oo dhaca koonfurta gobolka Qowqaaz ee Eurasia kuna yaala galbeedka Aasiya wuxuuna xuduud leeyahay Turkiya, Georgia, Azerbaijan iyo Iran waxaana caasimad u ah magaalada Yerevan waana magaalada ugu weyn dalkan sidoo kale magaaladan waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu qadiimsan caalamka luqadda ay dadku hadlaan waa Armenian dadka Armenianka ee caalamka nool waxa lagu qiyaasaa 10 ilaa 12 milyan kaliya waxaa dal gudihiisa ku nool 3 milyan inta ugu badanna waxay ku nool yihiin Mareykanka, Ruushka, Iran, Lubnaan iyo wadamo kale oo fara badan sanadu markay ahayd 2008 Armenia waxaa laga helay kabihii ugu duqsanaa caalamka waxayna kabahan yaaleen wax ka badan 5500 oo sanadood sidoo kale Armenia waxaa ku yaala warshadii ugu da'da weyneed ee sameysay khamriga waxaana lagu qiyaasaa warshadan inay jirtay 4100 sanadood ka hor dhalashadii Nabi Ciise dadka dalkan waa kuwa ku wanaagsan ciyaarta jeeska ama shadrinjiga sida u taqaanidba waxaana lagu dhigaa iskuulada waana qayb ka mid ah manhajka dalka dadka ugu caansan ee waddankan ka soo jeeda waxaa ka mid ah Henrik Mkhitaryan iyo Kim Kardashian